waxaad ka fahmi kartaa qiimaha dumarka loo yeelay sida ilaahay u amray subxaana wa tacaala inay ku dadaalaan xirashada xijaabka iyo dharka islaamiga ah. waxa la amray ma aha walaalayaal inay dirac qaataan, waxa la amray ma aha walaalayaal inay isqaawiyaan, waxa la amray ma aha inay tabaruj iyo bannaanbax sameeyaan, waxa la amray ma aha inay kalaabyada iyo meelaha aroosada ka ciyaaraan, laakiin maxaa la amray yudniina calayhinna min jalaabiibihinna, is-astura oo isqariya. waayo gabdhuhu waxaa lagu tilmaamaa waxa ugu qaalisan bay ka mid yihiin ee adduunka jooga, waxyaabaha aadka loo jecel yahay ayay ka mid yihiin ee adduunka jooga, si uusan nin kasta si sahla u helin, si uusan nin kasta gacanta ugu taagin, si qof kasta uusan ugu hanqal taagin ayaa waxa qaaliga ah ee dhaymanka ah ee dahabka ah meel asturan baa la geliyaa. sidaa darteed dumarka islaamka ah waxa uu ilaahay ku sharifay inay jalaabiib qaataan, waxa uu amray inay xijaabka islaamka labistaan, waxa uu amray inaysan iska dhigin badeeca raqiis ah. walaalayaal, sida la fahmi kara maanta waxaad arkaysaa qaawanaashii bay wax fiican u maleeyeen, qaabdaradii ayay u maleeyeen wax wanaagsan. wax walba oo rabbi idin amray qiimahiinaa ku jira, war sharaftiinaa ku jira. gabdhaha muslimaadka u isxijaaba, war ilaahay ka cabsadee jalaabiibta qaata, war ilaahay ka cabsadee is-astura, war ilaahay ka cabsadee amarka ilaahay qaata subxaana wa tacaala. nebiga sala allahu calayhi wasalam laba qolo ayaa imaan doonta gadaashay buu yidhi, laba qolo ayaa imaan doonta aakhiru zamanka. rasuulku wuxuu yidhi waa nisaa, waa dumar kaasiyaad ah, caariyaad ah, maa'ilaad ah oo mumiilaad ah. sida loo raadinayaa la arkay gabdha 18 jira ah oo kalaab ka tumanaya, surwaal iyo funaanad bay wataan, islaamnimay sheeganayaan, ummaddii nebi moxamed bay sheeganayaan, soomaalinimay sheeganayaan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waa 18 jir, waa 17 jir, waa wax ka sii yar iyo wax markaa ka weyn. waa dumar dhar qaba haddana qaawan buu yidhi nebiga sala allahu calayh wasalam. nimcada allay labisan yihiin, shukrigeeday ka qaawan yihiin, dharjiskooda iyo jasadkooday dhinac banneeyaan, dhinacna way qariyaan. gabdhaa imaan doona ayuu rasuulku dhahay sala allahu calayhi wasalam, waa dhar la'yihiin haddana dhar bay qabaan, dirac bay wadataa, sadrigeeda la dareemi karaa, la sifayn karaa, caddaan iyo madow iyo guduud, wax allaala waxa uu yahay. waxaa la arkayaa silsilada iyo katiinada u xihan. waa dumar noocaas ah, dadka ayay iilaan, ayagana xaqay ka iila yihiin. ummadday leexinayaan buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala, waxay ka leexinayaan xaqa iyo taacada iyo diinta alleh. raggii maanta in badan dumar baa fidneeyey, waxayna ku fidneeyeen amarka allay qaadan waayeen, waxay ku fidneeyeen xijaabkay labisan waayeen, waxay ku fidneeyeen catar iyo barfuun ay bannaanka la soo baxeen, waxay ku fidneeyeen hadal jajaban oo aad iyo aad u jilicsan, waxay ku fidneeyeen wax allaala wixii cadaab alle lagu heli lahaa subxaana wa tacaala. dumarow in badan xishooda, war dumarow xaqii taacada alle ku dadaala. mujtamaca dumar baa laga fiiriyaa, hadday hagaagaan mujtamacu waa hagaagaa, dumarku hadday xumaadaan mujtamaca intiisa kale way xumaadaan. rabbi subxaana wa tacaala qiimayn uu gabdhaha qiimaynayo iyo qaalinimo agtiisa ay qaali ka yihiin, iyo dhowrsoonaan iyo wanaag uu la jecel yahay, iyo akhlaaq wanaagsan oo uu la doonayo iyo rabbi ugu jideeyay subxaana wa tacaala, oo sharciga macnaa wax weeye uu arrintaa iyada u sameeyey. mar hadduu arrinku sidaaya, marka haweenay kasta oo muslimad ah oo ilaahay iyo maalinta aakhare rumaysan, waxaa waajib ku ah inay alle iyo rasuulkiisa ka amar qaadato salawaatullahi wasalaamu calayh. nahay xijaabka ahmiyadda uu leeyahay iyo qiimaha uu bulshada islaamka u leeyahay, gaaladu culayska ay saarayaan iyo weerarka ay ku hayaan iyo ololaha ay ugu jiraan inta gaalada iyo inta gaala raaca inay haweenku isqaawiyaan, yaad ka garan kartaa shayga qiimaha uu u leeyahay muslimiinta iyo bulshada islaamka. waa hay-aadka haweenka. waxa kutub yaryar soo baxaya ama joornaalada lagu qorayo laleeyahay xoraynta gabadha muslimadda ah, kulligeed danta ay leeyihiin waxa weeyaan gabadhaas muslimadda qiimaha in qiimaha laga dilo, gurigeeda in laga saaro. haddii guriga laga saarana waa seef loo adeegsanayo in bulshada islaamka lagu dumiyo.
markay hadlayeen waxay yidhaahdeen yacni koob khamro ah waa madaxda reer galbeedka koob khamro ah iyo gabadh muslimad ah inaan gacanta oo inoo soo taagto helno ayaa bulshada islaamka iyo ummadda muxamed ka dumin badan madaafiic iyo sawaariikh gantaallo inaan u isticmaalno inaan gantaallo u isticmaalno ciidamo waaweyn ku bixinno waxaa ka degdeg badan oo ka sahlan oo natiijadu uga dhowdahay in aan haween qaaqaawan ku dhex siidayno haween qaawan haddii lagu dhisayo gurigii laga saaro bulshadaasi waxaa aad u fudud inay duntoy burburto khaasatan hadday bulsho islaamiya tahay macna markaas walaalayaal xijaabkan aad arkaysaan waxa weeyaan waa tamyiiz waxaa lagu kala soocayaa gabadha muslimadda iyo kayrkeed ayaa lagu kala soocayaa marka gabadha sidaan ay u qurux badan tahay sidaan u xijaaban tahay markiiba xataa ninka gaalka aanan waxba aqoon markuu arko wuu garanayaa qofku inuu qof muslima yahay ilaahay sii rumeeyey hoggaanka u dhiibtay alle rasuul muslim inuu yahay wuu garanayaa waa tamyiiz marka gabadha muslimadda ah iyo kayrkeed waa tamyiiz bayna alxaqi waalbaatil bayna aliimaani waashirk gabadhan ilaahay bay caabudaysaa taa kale kayrkeed ahna yay caabudaysaa ibliis bay caabudaysaa taaquud shirki bay ku jirtaa ilaa ibliiska wuu farayaa ilaahay wuu farayaa ka ilaahay raaca waa muslim waa ahlu waa mu'min iimaan qof leh kan ibliiska taladiisa raaco ilaahay gacanta ku sayraana dee waa mushrik weeyaan waxaba yaraatee maalinka qiyaama wuxuu imanayaa ka caabadati alawthaan isagoo ah sidii kuwii caabudayey ee awthaanta iyo sanamyadu imanaya war arrinkan waa aaya min aayaati illah in lagu ciyaaro ma aha bayna alxaqi waalbaatil gabadhan muslimadda ah mar waa muslimad mar waa mu'minad marna waa xaqay ku sugan tahay gabadhan xaqay dul joogtaa sidaa hadday gabadha ku dhimato gabadhan tilmaamaya waa gabadha libaasu taqwa uurkana ka asturan uurka ruuxda ka asturan korna ka asturan isku darsatee labada tahaara isku darsatee labada aayadood hadday sidaa ku dhimato wallaahi meel kale geli maysee ciddii ay uga dayanaysay faatimatu zahraa bay jannatul firdows la galaysaa allaha idin yelkiin idinka yeelo kuwii faatimatu zahraa umuna caaisha la gala jannada